16 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Kiev agagaarkeeda dalka Ukraine waxaana ku jiray 16 qof wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Ukraine laba caruur iyo waliba saraakiil sarsare oo iyaguna ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha shilkan ayaa yimid kadib markii ay dhacday diyaarad helicopter ah oo ay la socdeen dadkaasi isla markaana ay ku burburtay meel u dhow xarun lagu xanaaneeyo dhirta oo ku dhow ama ka baxsan agagaarka caasimadda Kiev ee dalka Ukraine sida uu sheegay sarkaal u hadlay ciidamada Bilayska oo lagu magacaabo Igor Kilimanko dadka dhintay waxa kamid ah dhowr sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku jiro wasiirka arrimaha gudaha ee lagu magacaabi jiray Denis Monastersky dhinaca adeegyada degdega ah ee caafimaadka ayaa iyagu ka shaqeynaya samata bixinta caruurta iyo shaqaalaha kadib markii ay diyaaradaasi ku dhacday goobtaasi dadka ay waxyeeladu soo gaadhay maaha oo kaliya intii la socotay diyaaradda helicopterta ah ee sidoo kale waxa ku jiray shaqaalihii goobtaasi xanaanada ah ee ay diyaaraddu ku dhacday oo qaar kamid ah ay waxyeelo ka soo gaadhay isla markaasina qaarkood ay ku dhinteen Ukraine ayaa sheeganaysa inay ku dhowdahay xilligan inay guulo ka gaadho ansixinta taangiyada ay dalbanaysay iyada oo waliba markan helaysay ama heshay ballanqaadyo rasmi ah oo ay ka heshay dalal uu Jarmalku kamid yahay kuwaas oo u xaqiijiyay inay siinayaan gantaalaha difaaca cirka iyo sidoo kale taangiyada casriga ah ee ay Ukraine muddo dalbanaysay dalal dhowr ah oo sidoo kale Faransiiska iyo Holland ay kamid yihiin ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay siinayaan taangiyadaasi casriga ah sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa isaguna ugu baaqay in ay siinayaan taangiyadooda casriga ah waxa kale oo jiray dalal dhowr ah oo iyaduna reer Yurub iyo Mareykanku ay kamid yihiin kuwaas oo ku tababarayay ciidamada Ukraine difaaca ama nidaamka difaaca cirka ee Patriot-ka loo yaqaano si ay isaga difaacaan duqeymaha Ruushka ee ay Ukraine la daaladhacayso kuwaas oo si weyn u naafeeyay adeegyada kala duwan ee Ukraine iyada oo duulaan habeenba ah ay kala kulmayaan ciidamada Russia oo waliba dhinaca cirka ka soo weerarayay gantaalana la dhacaya goobaha muhiimka marwada koowaad ee Ukraine oo lagu magacaabo Olena Zelensky ayaa ku boorisay wufuudda madasha dhaqaalaha adduunka ee Davos inay sameeyaan wax badan si ay gacan uga geystaan bay tiri joojinta dagaalka isaguna madaxweyne Zelensky ayaa la filayaa inuu Arbacada maanta ah uu madashaasi uu khudbad u jeediyo inkastoo dagaalka dhinaca dhulka ah ay Ukraine guulo waaweyn ka gaadhay oo in badan oo dhulkeeda kamid ah ay dib uga durkiyeen ciidamada Russia haddana wali waxay u caalwaayeen duqeymahaasi aan kala joogsiga lahayn wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia Lavrov oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalka Mareykanku uu wado duulaan aad u weyn oo gudaha dalka Ukraine uu ka fulinayo si uu sumcadda dalka Russia uu u dhaawaco dhinaca kalena waxa uu Lavrov ugu baaqay in ay Mareykanka iyo waliba gaar ahaan ama guud ahaan NATO ay ciidamadooda kala baxaan dalka Ukraine oo sheegay inay hawlgallo military ay faraha kula jiraan taasina ay xaaladda sii xumaynayso